بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، walaalayaal waxaan doonayaa maanta inaan soo qaado mowduuc aad iyo aad runtii faa'iido u leh dhammaanteena, especially muxuu ahaa si gaara u anfacaya dhalinteena, taasoo maalmo dhoweyd aan ku yara arkay goob ay isugu yimaadeen dhalin badan oo Soomaali ah oo markaasi arrin ay ka doodayeen. Waxa ay ka doodayeen qur-aanka ruuxa akhriya wax faa'iida ma ka helayaa. Marka run ahaantii mowduucaas ayaan jeclaystay maanta in aan ku soo qaato darsigan maanta. Intaanan u gadagelinse waxaan isku dayayaa inaan qeexo micnaha qur-aanka. Qur-aanka runtii waa kitaabka Allah subxaanahu wa tacaala uu ka soo dejiyey xagga samada laguna soo dejiyey nabigeen maxamed ahaa badbaaday naxariis dushiisa ahaatee. marka labaad waa kalaamka Allah subxaanahu wa tacaala. marka saddexaad qur-aanku waa nuur inooga yimid xagga rabbigeen jalla sha'nuhu wa cala. midda afraad qur-aanku waa naxariis aad u ballaaran oo hanuun iyo wanaag aynu ka helayno. sidoo kale qur-aanku waa manhajka guud ee Allah subxaanahu wa tacaala uu u soo dejiyey aadamiga guud ahaan ee dhisaya noloshooda adduun iyo aakhira intaba. haddiise aan u soo laabto arrinta aan focuska ku saarayno ama aanu xoogga ku saarayno muxuu ahaa mowduuceena waxa ay tahay ruuxa aanan xafidsanayn qur-aanka ee aanan dusha ka akhrin karin ee isagu joogteeya akhrinta qur-aanka wax faa'iido ma ka helayaa. waa sax, faa'iido ayuu ka helayaa qofka aan qur-aanka xafidsanayn ee akhriya ee kitaabka intuu kala baxo maalin kasta uu saa u kala bixiyo 5 daqiiqo Allah ka dhigay 10 daqiiqo Allah ka dhigay akhriya faa'iidooyin ayuu ka helayaa. faa'iidooyinka waxaan u kala saarayaa marka laba qaybood ayaan u kala saarayaa. qayb u gaar ah qofka ee naftiisa ku kooban iyo qayb dadka oo dhan ay ka dhaxayso. aan ku hormaray qaybta muxuu ahaa u gaarka ah ama faa'iidada uu ka helayo ruuxa akhriya qur-aanka, faa'iidooyinka gaarka isaga uu ka helayo nafsad ahaan ayaan ku bilaabayaa. midda koowaad, qur-aanka akhrintiisu waa cibaado oo haddii aad akhrido waa adigoo cibaadaystay oo kale. ruuxii cibaadaysta oo wax allaale wixii Allah subxaanahu wa tacaala uu raalli ka yahay sameeyana waxa uu helayaa xasano ayuu helayaa. haddii hal xasano uu sameeyo wuxuu helayaa 10 la mid ah ayuu helayaa ilaa adcaaf almudaacafaat ayuu helayaa. marka koowaad faa'iidada gaarka ah ee qofka haddii uu akhriyo qur-aanka oo aanu xafidsanayn uu ka helayo waxa ay la micno tahay isagoo gutay cibaado ka mid ah cibaadooyinka Allah subxaanahu wa tacaala uu raalli ka ahaa ajarna uu ka helayo. faa'iidada labaad waxay tahay qur-aanku wuxuu dawo u yahay ama akhrintiisu ay dawo u tahay dhammaan ciladaha iyo mushkiladaha ku imanaya ruuxa naftiisa sida stresskii, depressionkii ama aan iraahdo walwalka iyo walaaca iyo walaahowga ee qofka naftiisa muxuu ahaa ku soo biiraya ama la soo darsa oo ay sababayaan markaasi arrimo la xiriira dhinaca dhaqaalaha iyo waxyaabo kale oo la mid ah intaba. sidoo kale faa'iidooyinka gaarka ah ee uu ka helayo ruuxa akhriya qur-aanka ee aanan xafidsanayn waxaa ka mid ah markaad akhriso qur-aanka naftaadu waxay ka helaysaa xasilooni oo way ku degaysaa qur-aanka oo Allah subxaanahu wa tacaala ayaaba inooga dhigay wax naftaynu ay ku degto. sidoo kale akhrinta qur-aanka waxa ay xoojinaysaa dareenka xusuusta
ee qofka ayay xoojinaysaa. qur'aanku sidoo kale waxa uu sabab u yahay ama sabab uu u noqonayaa waa haddii aad akhrido oo aanad xafidsanayn xitaa wuxuu sabab u yahay ama uu u noqonayaa in uu kaa badbaadiyo cudurrada halista ah qaarkood ee uu ka mid yahay kansarka, ee uu ka mid yahay HIV-ga ama AIDS-ka, ee uu ka mid yahay cudurka macaanka sokorowga, ee uu ka mid yahay dhiigkarka, kolestaroolka iyo wixii la mid ah. sababtoo ah allah subxaanahu wa tacaala ayaaba inoogu xusay oo ku sheegay qur'aankiisa jalla sha'nuhu wa calaa waxaana uu yidhi oo suurat al-israa uu ku sheegay وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قرآنكو waxa uu yahay caafimaad iyo naxariis ayuu u yahay ruuxa mu'minka ah ee akhriya xitaa haddii uusan xafidsanayn. walaa yaziidu dhaalimiina kamana korsanayaan kuwa dhaalimiinta ah ilaa khasaaran khasaare mooyaane. faa'iidada kale ee ruuxa joogteeya akhrinta qur'aanka ee uu ka helay qur'aanka akhrintiisa waxa ay tahay qur'aanku wuxuu saafi ka dhigayaa quluubteenna oo qalbiga ruuxa ayuu saafi ka dhigayaa. wuxuu saafi ka noqonayaa qalbigaaga waa xasadka, xiqdiga, karaahiyada ama nacaybka iyo wixii la mid ah. oo qur'aanka akhrintiisa marka aad joogtayso qalbigaaga wuxuu saafi ka noqonayaa dhammaan wasaqdii iyo dunuubtii iyo wixii muxuu ahaa wasaqaynaya qalbigaaga oo dhan waxaas oo dhan ayuu ka tirtirayaa oo saafi uu ka dhigayaa. waxaa jirtay qiso cajiib ah hadda kahor dhacday. qisadaas waxay ahayd oday ayaa wuxuu caadaystay in uu akhriyo qur'aanka maalin kasta inuu akhriyo qur'aanka. hase yeeshee maalin maalmaha ka mid ah wiilkiisii yaraa wiil uu dhalay oo yar ayaa waxa uu ku yidhi aabbow qur'aanka kol haddaanad xafidsanayn maalin waliba akhrintiisa maxaad faa'iido ka helaysaa ayuu ku yidhi. ilaan maba xafidsanide maxaa faa'iido oo ballaaran oo aad ka helaysaa. odaygii wuxuu yidhi waa runtaa ma xafidsani qur'aanka waana akhrinayaa maalin kasta laakiinse jawaabteeda waxaan ku siin doonaa mar dhow. markaasuu wuxuu ku yidhi aabbow waxaad samaysaa kitchinka galo oo jikada gal waxaadna ka soo qaadaa salladda dhuxusha hooyada ay kaga soo iibiso suuqa nooga soo qaad haddii ay maran tahay marka aanay waxba ku jirin. wiilku wuxuu yidhi aabbo way maran tahay. markaasuu yidhi keeno. markuu keenay wiilkii salladii dhuxusha markuu keenay aabihiisa iyadoo aan waxba ku jirin wuxuu yidhi qaadoo badda la aado biyo nooga soo qaat. markaas wiilkii yaraa wuxuu ku yidhi aabba sidee ku anfacaysaa bahashan waxay leedahay daldaloolo fara badan marka suurtagal ma aha inaan dhuxul kusoo inaan biyo kusoo qaado aan ku keeno guriga aan kusoo gaarsiiyo. markaasuu wiilkaygii isku day bal inaad ku keento. yarkii wuu cararay baddii uu aaday salladii uu biyo ka soo buuxiyey wuu soo cararay isagoo leh ka gaarsii aabbaha laakiinse biyihii waxay ka baxeen daldalooladii isagoo aan guriga soo gaarin ayay dhammaadeen biyihii. odaygii ayuu yimi markaasuu yidhi aabba waa kan waa ku soo qaaday laakiinse wax biyo hadda aan sida ma jiraan waa sida aan kuu sheegay. markaasuu yidhi bal mar kale isku day. markaas wiilkii mar labaad yuu aaday baddii iyuu ku soo qaaday haddana wuu soo cararay isla sidii. markaasuu mar saddexaad aaday isla salladii ku soo qaaday mar afraad mar shanaad. markaasuu markii shanaad wuxuu yidhi wiilkii aabbo waa ku daalaye horena waa kugu sheegay wax isbedelaya ma ay jiraan marka hanugu dhibana iga daa. markaasuu aabbihii wuxuu ku yidhi waa runtaayo waa sidaad sheegtay salladdu waxay leedahay daldaloolo fara badan marka suurtagalna ma aha inaan biyo aad kaga soo qaado badda aad guriga kusoo gaarsiiso. laakiinse wuxuu yidhi wax kaloo aad ka dareentay salladda ma jirtaa oo isbeddela aad ku aragtay. wiilka wuxuu yidhi haa isbeddel weyn ayaan ku arkay oo wasaqdii dhuxushii madmadoogii wixii oo dhan waxa ay ka noqotay nadiif oo salladda waa nadiif hadda. dhuxushii iyo wasaqdii ku taallay way adag tahay si aan mar dambe aan ugu arko meesha. markaasuu yidhi aabihii wuxuu ku yidhi markaa waa sidaas oo kale ruuxa akhriya qur'aanka maalin kasta ee joogtaya
laakiin se aanan dusha ka qaybi karin oo aanan xafidsanayn qalbigiisa ilaahay sidaas ayuu uga nadiifinayaa wasaqda oo adduunyadu waa muxuu ahaa waa hawl badan tahay waxaa laga yaabaa qulubteenna inay ku dhacaan dunuub iyo gafaf yaryar waxyaabahaas oo dhan qur-aanka si marka aad aqriso waxa uu ka mayrayaa waxaas oo dhan oo wasaqdaas ayuu intaasi waa faa'iidooyinka u gaarka ah qofka shakhsiga ah ee aan xafidsanayn qur-aanka ee uu ka helayo markii uu akhriyo ama uu joogteeyo akhrintiisa 10 daqiiqo allah ka dhigay maalintii haddiise aan u gudbo markana faa'iidooyinka guud oo dadka oo dhammi ay ka wada helayaan qur-aanka akhrintiisa waxaa ka mid ah qur-aanka haddii aad akhrido allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ballan qaaday inuu xijaab dhex dhigayo dhexdiina adiga iyo kuwa aanan rumaysnayn qur-aanka iyo maalinta aakhiro inuu xijaab dhigayo dhexdiina ayuu allah subxaanahu wa tacaala ayuu ballan qaaday oo rabbigan jalla sha'nuhu wacalaa waxa uu ku yidhi qur-aankiisa gaar ahaan suurat lisraa wa idaa haddii qara'ta aad akhrido alqur'aana qur'aanka haddii aad akhrido jacalnaa waxaanu yeelaynaa baynaka wa bayna aladiina adiga iyo kuwa laa yuuminuuna aanan rumaynin bilaakhirati maalinta qiyaama aan rumaynin waa abaalmarinta yoonkeeda xijaaban dayr ama gudub ama xijaab mastuuran oo asturan ilaahay wuxuu yidhi waxaan yeelaynaa dhexdiina dayr aad u asturan gudub asturan ayaanu yeelaynaa ayuu yidhi allah subxaanahu wa tacaala oo qur-aanka wuxuu kaa badbaadinayaa cid kugu soo socotay oo fal cadowtinimo kula damacsanayd allah subxaanahu wa tacaala wuxuu dhigayaa dhexdiina gudub oo aanay soo dhaafi karin markaa oo adigana aad ku badbaado sidoo kale faa'iidooyinka qur-aanka ee dadkoo dhan ay ka wada helaan ee guud ay akhriyaan hadday xafidsiin haddayna xafidsanayn intaba waxaa ka mid ah haddii aad akhrido xaraf ka mid ah qur-aanka maaha kelmad maaha aayad maaha xaraf keliya oo aad tiraahdo xaa miim haddaad tiraahdo waa xa iyo miim ama alif laam miim haddii aad tiraahdo oo ka koobanta alif iyo laam iyo miim alifka keliya haddaad ku dhawaaqdo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku siinayaa 10 xasanaad 10 xasanood ayuu ku siinayaa haddii aad tiraahdo qul haddaad tiraahdo qaaf iyo laam waa 2 xaraf allah subxaanahu wa tacaala qaafka wuxuu kugu siinayaa 10 xasanood laamkana 10 xasanood oo 20 xasanood ayaad ku helaysaa intaa wax ka sii badan oo 2 jibaar ama 3 jibaarkeeda ama intaa wax ka sii badan allah subxaanahu wa tacaala wuu awoodaa in uu ku siiyo uu kugu abaalgudo wuu awoodaa sidoo kale subaynan maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh isagana waxaa ka sugnaatay in uu yidhi iqra'uu aqriya alqur'aana qur'aanka aqriya fainahu yaatii yowma alqiyaamah qur'aanka wuu iman maalinta qiyaamaha shafiican isagoo u shafeecaya lisaaxibihi saaxibkiisa qofkii akhrinaya dunida marka uu joogay isagoo u shafeecaya ayuu u imaanayaa marka qur'aanka akhrintiisu faa'iidooyinkaas ayay leedahay marka haddii ay niyaddu kaa gasho ama dad ay kugu akhriyaan qur'aanka haddaan xafisan wax faa'iido kama helaysid waxaad ogaataa arrintaasi inaanay sax ahayn oo shaydaanka ayaa soo gelaya qalbiga wuxuu rabaa inuu kaa fogeeyo khayrka inuu kaa fogeeyo ayuu rabaa marka ka feejignow shaydaanka yaanu kaa fogeyn khayrkaasi faraha badan haddii aad xafidsan tahay iyo haddaanad xafidsanayn qur'aanka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu saafi kaga dhigayaa qalbigaaga sida hadda kor aan usoo sheegay cudurrada ayuu kaa xijaabayaa waxyaabahaas oo dhan haddaad xafidsan tahayna iyadana kasii fiicanba marka qur'aanka in la xafido oo ruuxa uu xafidiyo way fiican tahay laakiin waajib maaha waxaase waajib ah qofka qur'aanka in uu xafido suuradda alfaatixa faatixada inaad xafidsanaato way fiican tahay sababtoo ah salaadu ma ansaxayso qofka ilaa iyo faatixatulkitaab inuu yaqaano mooyaane sababtoo ah faatixada waxay muhim u tahay salaadaada marka ha lagu dadaalo akhrinta qur'aanka ha lagu dadaalo marka ruuxii fursad u helay inuu xafidana ha xifdiyo ruuxii aanay u suurtagelinna ha ka faa'iidayso marka uu fursad helaba ha aqriyo aayaadka allah subxaanahu wa tacaala waayo waxaynu ka helaynaa ajar fara badan iyo thawaab badan ayaanu ka helaynaa oo qur'aanka waxa uu noqonayaa mid noo shafeeca maalinta qiyaamaha ayuu noqonayaa
وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.